Wiilkan ayaa ka dambeeyay hacking-kii weynaa ee lagu sameeyay shirkadda Twitter. Sida lagu sheegay, wiilkan ayaa ah 17 jir, waliba ka qalin jebiyay high school oo kaliya. Markii hore wuxuu target ka dhigtay qaar ka mid ah shaqaalaha, kadib ayuu wuxuu isticmaalay aqoonsiga shaqaalaha, sidaas ayuu ku soo galay systemka. Wuxuuna awood u yeeshay in uu ka samayn karo wax kasta. Sidaan hore ugu sheegnay muuqaalkii hore, wuxuu gacanta ku dhigay dad waaweyn oo caan ah, billionaires iyo millionaires akoonadooda. Dhammaantood wuxuu soo dhigay boostiyo isku mid ah, uuna ku dhahayo haddii aad soo dirto $1,000 waa lagu laba jibaari doonaa. Faa'iidadaasna waxay ka imaan doontaa lacagta loo yaqaano Bitcoin. Dadkii ku xirnaa akoonadaas way aamineen, waxayna bilaabeen in ay diraan lacagtooda. Hal maalin gudaheeda ayuu wuxuu ka faa'iiday in ka badan $100,000. Hadda wiilkan waa la soo xiray, waxaana lagu wadaa in maxkamadda la horgeeyo. Waxyaabaha wiilkan loo haysto ayaa ka mid ah inuu lunsaday lacago badan iyo inuu helay xogag xasaasi ah ku saabsan arrimaha doorashooyinka Mareykanka. Amount that was stolen, this could have had a massive amount of money stolen from people, and it could have destabilized financial markets, both in America and across the globe, because he had access to powerful politicians' Twitter accounts. He could have undermined American politics as well as international diplomacy. In regard to the election, I'm not concerned because we talked with our supervisor of elections. We know that we have a great system set up here to protect the integrity of our election. Andrew Warren oo fariin u diray dadka raba inay sameeyaan falkan. People who are committing these crimes, we have a message for them. This is not a game. These are serious crimes with serious consequences. And if you think you can rip people off online and get away with it, you're going to be in for a rude awakening. A rude awakening that comes in the form of a 6 a.m. knock at your door from federal agents. Scamming people out of their hard-earned money is always wrong. And whether you're taking advantage of them in person or online by stealing cash or cryptocurrency, it's fraud, it's illegal, and you won't get away with it. Muuqaalkan halkaas ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay like saar, la wadaagna asxaabtaada.